وهرين إلهي بمهدله مرلوات كان الأكاديمية سو ديارسي برنامج كان يوم متقنا مرتين كلا دوان بانليست كي يوم متقنا كغيب قليا شغله لما أنتنا ديات باردي سلامية ونما هتنتين waxay la tahay sida agaasimuhuna uu sheegay Cabdiraxmaan ba mowduucina maanta aynu caawa halkan isku joognaa waxa weeye inaynu iskaga warbixino bal marxalad laga soo gudbay ay ka soo gudbeen mataqana daayirta halkan fadhida ilo gudbayaan marxalad kale marka bartaas mataqana crossroadka ama barta mataqana iskooyskaas sida loogu gudbayo iyo sida loogu galaw qaadanayo inaan wax iskaga dilay ka dhigo inuu wadaagno sida caadiga ah noloshu dadku ama aqoonta isleeyihiin ama noloshu ay bartay han noqotay khibradda ama dabcan daadaba han noqotay waa in wixii la isku dhaamo nolosha caadiga ah baa dhigaysa in wixii la isku dhaamo in la mataqana la wadaago oo la isweydaarsado si ugu yaraan qofkaasi jaranjarooyinkii hore uu soo maray qofka soo socdaan ugu turunturoon ama tusaale ahaan haddii uu ku dhibtooday qofkaasi qofkan uu fududaan karaso marka in la wadaaga waxay ka mid tahay runtii gabadhimada nolosha iyo mataqana dul joogitaankeedaba waxaan doonayaa inaan si kooban bal aan dib ugu yar noqono nolosha waxbarashada marka laga warramayo waxa la yiraahdaa continuous behavioral change waa isbedel joogto ah oo qofka ku dhacaya mataqana habdhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo soo aragiisa iyo noloshiisa oo dhan ku dhacaya markii marxaladii uu ka warramay agaasimuhu waa ahayd dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare iyo jaamacadda marka la joogo qofku mar walba mastarad baa uu iskugu miqyaasaya marka wuxuu eegayaa waxbarashadii markaan dugsiga hoose joogay iyo markaan dugsiga sare joogay wax farqi oo dhexeeyay ma jirin waata qofka dabadda joogaan waxba baran iyo qofka gudaha jooga kala bedelaysa kala saaraysa markuu dugsi sare gaadhana wuxuu isbarbar dhigayaa dugsiga dhexe markuu ahaa iyo hadda maxaa bariga iga suuroobi jiray oo aan samayn jiray ama oran jiray oo imka aan samayn karin oo waxbarashadan ayaa iga hortaagan tahay markaan jaamacad galo maxay noloshaydii iyo sidaan u fakarayay iyo sidaan wax u arkayay iska bedelay marka la barbar dhigo markaan jaamacadda joogo dugsiga sare joogay marka waxbarashada marka laga warramayo waa continuous behavioral change kaas lagu soo ururiyaa inay tahay qofku inuu noloshiisa iyo marxaladiisa iyo mataqaanayo fikirkiisa iyo dhaqankiisa wax ka bedesho haddaba marka jaamacadda la yimaado dugsiga sare laga soo baxo waxaanu taaganahay halka la yiraahdo iskooyska oday reer biyewa ka yimi miyo magaalo yimi wadatana laamiga waa tan baaburtooda kuwa labada haada qaarna xaggan socdaan marka uu ka talaabayo ay mar xaggan eega dabatan marka labada dacalba eega uu gudbaa maalintii dambe inuu la socdo ku yiri waa salaamo naqsigii ma la gaar yani halkii lagu salaamo naqsanayo xaggan la iska eegay xaggan la iska eegay maanta halka taaganta waa salaamo naqsigii marka dugsigii saraad soo dhameysana waxa taaganta jaamacaddii marka waxaad ma kambaan doortaa mise kambaan doortaa halkaas aad taagantay marka sida runtii maanta dooran mayno fakalkaas fiican ee doorta waayo waxay noqonaysaa inaan ku xadgudubnay doonistiina iyo xuquuqdiina asaasiga ah laakiin waxaan idin warbixinaynaa maxay tahay qofku marka uu doonayo inuu fakal ama kulliyad uu doonayo inuu doorto maxay tahay inuu miqyaas ka dhigto muxuu ka duulayaa markuu fakalkaas ama mataqana kulliyadda uu dooranayo marka koobaad marka jaamacadda la joogay jaamacadda la dhiganayo qofku jaamacad ka soo baxo doorashadu hay dambeysay qofku wuxuu bilaabayaa haddii dugsigii sare marka uu dhiganayay uu macluumaad guud qaadanayay oo xambaarayay jaamacadda qofku markuu ka baxo wuxuu baranayaa wixii loogu soo hagaagi lahaa hebel maxaa laga martiyayaa adigu maxaa taqaanaayo dadka kale aad kaga duwan tahayoo laga martiyayaayo aqoontaadii aad oran karaysaa in kugu filan ama ugu yaraan dadka kale waxbaad kaga yar duwanaysaa aqoontaas laga martiyaya dugsiga sare markii la soo wada dhiganay waxba la soo wada dhigtay dadku isku wada mid bay ahaayeen laakiin hadhow tolo qofku wixii sida gaarka uu gaar ahaan lahaa ee la oranayo hebel loo geeyo mawduucaas uu aqoon u leeyahay oo laga martiyaya oo halka marka laga kasbanayo marka la doonayo in qofku uu doorto fakalka uu doonayo siyaabo kala duwan baa runtii looga hadlaa si yaro kooban nin qoraay ah oo reer Kuweyda oo la yiraahdo Dr. Daariq Maxamed ayaa markuu ka warramayo mawduucan
waxa waranaya hadii xulashada qofku marka uu doonayo inuu fakal uu doorto hal kalmad buu soo rooriyo kalmad carabiga la yiraahdo rifqi waxa loo soo gaabiyo markaas uu soo gaabsaday raqab doonis iyo interest ama passion iyo fursa iyo waxa loo yaqaan al-qudra saddexda kalmadood buu ku soo rooriyo qofku marka uu dooranayo fakalkii dooranayo qodobka koowaad waa inay doonis jirtaa haddii waxa aad dooranaysid adigu aanad interest garaynayn haddii aanad xiisaynayn haddii aanu ku xiiso gelinayn haddii aanad mataqaana danaynayn hadhow toole doorashada aad doorataa ma noqonayso midii ku gaarsiin lahayd yoolkii aad ka lahayd waxaanad baranaysid marka qodobka koowaad waxa aad dooranaysaa waa inuu yahay wax ku xiiso gelinaya qodobka marka waxa ku xiiso gelinaya qodobo farababa ku hareeraysan waxa jira faktarro badan oo qofka saameynaya wixii uu xiiseynayay وقدم كلمة سؤال ومر صاحبة أبا ورنا يا متقنا هل كاسا متقنا موضوع عسا أما فكر كأما كلية دسان دجنا يا تاسدت كبعدين دجنا مروح لقى يا باين دجان كا تكون شيء والد كي وكلوا سامين أيه ولن قراءة السعودية أنا نلعب فاتحي أيه وحين تبغى نلعب مركان وكورهم يو سيد ضدك الله هندلو أما هلابور كسيد لو دلو والدك يبرشد لفتر كود قيب كتهاي بالمثل وحوليه هاي هدي والدك يولش يهرب ونولش شكلها وجاري وايو وحول أنت بدن ترى جرينا يا إنه وجبت كيس يراه هذا وحن برا هذا والدك سجى جاري وايو إنه عفمات برتو أما سجى جاري وايو إنه إنجنير برتو مركا وجبت كيو سجى عن لبضع من الدنيا بورنا يا وين عفمات كشاف marka wuxuu ka dhex raadinayaa yoolkiisa uu gaari waayay inuu qofka nabadka nago marka waa qaladaadka badan ee dhaca marka mataqana la dooranayo xulashada la sameeyo sidaas la mid ah dadyoga kala duwan qofka ku hareeraysana ay u saameynayaan qofkii fakalka uu doonayay marka koow kelmadda qofku waa inuu passion leeyahay wax weyn interest gareynaya hadii aanad interest gareynin hadhow tole kama mid dhalin karis oo qofkii qof la cuna duubay ama qof aan meeshu waxaan uu doonayo inuu barto mataqana de kama dhalinaya noqon maysid marka waa qodobka labaad waxa weeye waa in waxaan aad baranaysaa aad eegtaa fursadaha yaala ee suuqa ka goynayo ee nolosha ka goynayo ee marka adigu aad baratid ilaa waxaad u baranaysaa inaad nolosha kaga jawaabtid noloshii caqabadaheeda ka hor imanaya iyo kaalmaheedan kala duwan iyo baahideedan baad doonaysaa waxaan aad baranaysid inuu noqdo toolkii aad u isticmaali lahayd aad ku noolaan lahayd aakhiradaada aad ugu noolaan lahayd ifkan aad ugu noolaan lahayd adigana ku dabri lahayd marka horta toolkan waxaan aad baranaysaa muxuu ka goynayaa baahidii nolosha taagneed markaas taana qodobka labaad ay tahay inaad eegtid qodobka saddexaad waxa weeye al-qudra awoodii waxaan aad dooranaysid fakalkan aad dooratay iyo kuliyadan aad dooratay waxa ay ku fadhido ee aasaaska u ah adigu awoodeedii ma leedahay hatta doonaysa kulliyada engineering inaad baratid oo ka waran marka dugsigii sare iyo kii dhaxay kii hoose diganaysa aan xisaabta lagu soo marin jiray oo aad iyo aad kugu adkayd suurtagal ma tahay inaad ka midho dhalisid hadhow tiro kulliyada engineering awoodeedii ma leedahay capacity-geedii ma leedahay marka qodobka aad dooranaysid waa inaad garan karaysaa waxaanad awoodeedii leedahay waad ka soo bixi karaysid oo aanad gawaan raac noqon oo aanad qof kala doortay aanad noqon hadhow tiro aanad ku fashilmin qodobka labaad ee qudrada ku jira waxa weeye dhaqaale ahaanna ma u awoodaysaa oo si aan hadhow tiro adigu barta kaga jira aanad uga noqon oo dabadana waqtina kaaga lumin dabadana nolol dambe aad dib ka soo bilaabay dhaqaale ahaan ma u awoodaysaa kuliyadan aad doonaysid inaad baratid in aad mataqaana fursad ay ku saamaxdo saddexda qodob markaad eegtid ee dusha ka soo eegtid waxaad ku go'aan qaadanaysaa ku jaangoynaysaa markaas fakalka aad dooranaysid markaas waxaanu sheegnay qofkan inuu yahay wuxuu xiisaynayo interest gareynayo passion ku yahay waa raqaba been af carabi ku sheegay qodobka labaad waa fursadii suuqi qodobka marka fursadda markaan ka warramayno waxa jira laga yaabaa shay baad dooranaysaa oo kulliyada aad dooratay waad xiisaynaysaa laakiin markaad fursadaheeda eegtid very saturated aad iyo aad u buuxa suuqa laga shaqeysanayo tusaalaan kale taas waxay kaaga baahanaysaa marka dadaalka loo dheeraadka ay kaaga baahanaysaa waxa weeye waa inaad la timaado wax dadka kala duwan ay la imanayaan taasna goormaad samaynaysaa waa markan aad fakalkii aad dooranaysid aad jaangoynaysid tusaalahan soo qaadanaya waxa weeye hadda chance baad haystaan oo dad ba waxba la isla wadaagayaa markaan dugsiga sare ka baxnay jaamacadda Ingiliiska waxaan aaminsanaa
dadku ama inay engineering bartaan ama inay caafimaad bartaan waliba caafimaadka health science kaleena kama warramay qofku waa inuu ma taqaana dhakhtarnimada uu bartaa iyo inuu engineering bartaa inta waxa ka dambeeyo dadku muxuu ka baranayaabaan ayaan aaminsanaa marka halhaleel waxaan ugu dhacay inaan boorto engineering ka bartay markaan sanad waday waxaan dareemay qodobkii hore raqbad iyo interest marka laga yimaado fursadiisu inaanay ahayn sidii aan maleynay tusaale telecom engineer baan anigu ahaa telecommunication engineer markaan dooranayna waa taqaano laba shirkadood oo waaweyn ayuunbaa jira marka nolosha markaan soo barto waxaan u shaqaynay idar anigu intaan halkaa istaago ma samaysan karayo business aan leeyahay aqoontan aan bartay suuq waxba iga goyn mayso idar inaan labada company waaweyn u shaqeeyo bay noqonaysaa markaas ay noqotay inaan corrective action inaan sameeyo aan bal hadda kulliyado kale aan ku kabi karayo hadda tolo ka jawaabi karayo nolosha inaan doorto marka taana waxaan ku dhaafayaa qodobka ah maxaynu markaan dooranay maxaan u eegayaa marka saddexda kelmadood ninka ma taqaan qoraaga ahay uu sheegay ayaynu iyadana aynu ku soo dhaafayno si gaar ah hadda markaan ugu soo noqdo marka laga warramayo business and economics iyo social science anagu hadda inta badan social science baan laakiin social science business and economics ba inta badan ma taqaan jaamacadeenan tusaale gobolka kale ayuu badan inay bixiyaan qofku markuu doonayo kulliyadaha noocaas inuu galo fikirkan uu bariga ka haystay iyo kii markii dambe ka haystay runtii waa isbedelayaan waxa isku bedelayaan dadku si nolol caafimaad ugu baahan yihiin bay wax u baahan yihiin maamul wanaagsan waxa u baahan yihiin dhaqaalayahan wanaagsan inuu soo baxo waxa u baahan yihiin siyaasi wanaagsan inuu soo baxo waxa u baahan yihiin taariikhyahan wanaagsan inuu soo baxo waxa u baahan yihiin hoggaan fiican inuu soo baxo waxa u baahan yihiin waxa soo dhan wax ka jawaabaya marka kulliyadahan kala duwan ee business and economics hadduu qofku xisaabaadka baranayo يا هذا معمول كي مارين تبرنايو يا هذا برنا يصير عدود شغالة الله معمول هذا برنايو هذا برنا يدقالها هذا برنا يا متقنا سيد public administration كي دولة يصير الله معموله هذا برنا يصير دولة هوصل الله معموله هذا برنا يو متقنا سياسة إحرير كعالمي هذا تاريخ ده برنا يو هذا اللغة ده برنا يو هذا social work يا متقنا يا رمى اجتماعي جاي sociology جاي social anthropology برنا يو وحاصل إنه كلمة كل دولة نورش واحد كويس تجيان فكلا ذا مركب وحكوا إنه waxaan xiisaynayo ka aad xiisaynaysid marka aad dooratid ee aad ku dhagan tahay ee aad leedahay waad ka mid dhalinaysaa waxaan huba qofku inuu ka mid dhalinayo laakiin xilligan oo kale marka la joogo waxa la galaa hubanti la'aan in badan baad aragtid la hubanti la'aan siyaasadeed hubanti la'aan baa la galaa waxa saameyn kugu yeelanaya hubanti la'aan shakhsiyadeed bay imanaysaa marka qofku wuxuu ka werwerayaa maxaa doorataa wixii adigu aad jeceshahay dooro waxaad isleedahay waad ka mid dhalinaysaa dooro waxaad isleedahay mataqan ilaan marka objective ahdaaf la dejisanayo nolosha ahdaaf beereeda hadafka hadii aad ka baqasid inaad gaadhid inaad noqotid qofkii ugu fiicnaaye waxa bartay inaad noqotid hadda taa ka warwarsan tahay iyadoo dhibteeda ay runtii ay yeelanaysaa markaas xagga doorashadana inahaasaan runtii ku soo ururin lahaa aad iyo aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.